maanta waxaan la hadlayaa shacabka iyo waxaan la hadlayaa iyo labada xukunka isku haysata oo ah mucaaradka iyo muxaafidka. mucaafid iyo mucaarado waxaad ogaataan dowladda iyo kuwa mucaaradka ahow war wadanka u tura ilaahay subxaana wa tacaala kaga baqa. waxaa kaga baqdaan inaad isku tanaasushaan oo xaqaas aad istustaan. shacabo waxaan leeyahay faa'iidina iguma jirto mucaaradka iyo muxaafadka ama dowladda iyo mucaaradka inay kala adkaadaan, faa'iidina iguma jirto. maxaa yeele hadday kala adkaadaan dushiina ku dagaalamayaan ciddi adkaataba. berina waxaa laga yaabaa waddankii hadduu qof adkaatana qofkaas inuu sanka taagaa laga yaaba uu yidhaha dadka dhan waa addoonsanayaa ama dictatornimada inay noo soo laabata. hadduu mucaaradka adkaadana inuu shacbiga ku haasto markaas dictatornimo ku qabsado oo yidhaha anigaa waxaan dhacsaday, anigaa dhiig u soo caabay inaa kaad u caabay waxay sheegi jireen. hadday dowladda adkaatana iidan madax adeeg iyo dictatori inay la timaado. maxaa faa'iid ugu jiro shacabow? war dadkan heshiisiya tafahum siyaasi in la sameeyo, inaad ka shaqaysaan inay labadan qof isku yimaadaan oo aad ay wixii lagu heshiiyo. almuslimuun calaa shuruutihim, war ballamaa la dhigtay, xeeraraa la kala qortay, dastuuraa la kala qortay. waxaas in laga hadla aad dadka ku kaalmaysaan. hay-adaha madini qola lahayo culummada waxa joogo wixii aqayaar ah kala safasho waqtigeeda lama joogo. maxaa kala safasho haddaad kan la safatid nacaraadka qabiilka in la soo nooleeyo waqtigeeda ma joogno, waan ka soo gudubnay. waxaan joognaa waqti aan gacnaha isqabsan lahayn. dowladdan si gaar ula hadlayna waxaa leedahay ittaqu llaha fi nnaas, war dadka ilaahay kaga cabsada. kursi aad ku daahdid ilaahay subxana wa tacala waa ku weydiinayaa beri, ama kursi aad xoog ku fadhidid oo dadka ku rabin aad xukuntid beri qiyaamaha. wuxuu yidhi nabiga alayhi salaam qizyi wa nadaama waa shallaynaysa caawadaa dhimataan dadka dowladda ku jirow kursiga u dagaalamay. war dadka mucaaradka waxaan leeyahay kursiga u ordaayow, war mas-uuliyadaas waa qizyi wa nadaama wey. ummaddaasa loo turo. ummadda waxaan leeyahay kamaa tadiinu tudaan. haddaad idinka aad ka qabo weysaan qolooyinkan dibadaha ka soo hadla oo kooxaha ka dhigay oo facebookyada halka nin 100 magac ku furtay oo la ogsoon yahay maanta dhan magaciisa iyo kan wax soo diraa asdheys dad badana dadka taageersan asdheys mucaaradka ama dad badana taageersan dowladda asdheys. war been baa nafteeda u sheegaynaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nooga hadlayaa sulxa. xadiiskii anas ibn wuxuu leeyahay ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala liabi ayuub wuxuu ku yidhi alaa adulluka calaa tijaaratin, war ganacsi manii sheegaa? shacabka ummadda lala hadlaya. bala noo sheeg. wuxuu yidhi sil bayna annaasi idaa tafaasadu, war dadka hadday isdagaalaan xiriiri. wuxuu yidhi waqarib baynahum idaa tabaacadu, hadday kala fogaadaan hana biciisanin. dowladda shisheeye inay arrinteena ku jiraan biciisanayn. waa laga yaaba mucaaradka dowladda inay ku tuhunto mucaaradka dowlad shisheeye u shaqeeyo. xataa dowlad shisheeye waa u shaqayn karaan. shacabka waxaa la rabaa indhaha inuu kala furo uu yidhaha dadkan heshiisiyo maslaxadda ummadda firist laga dhigo, ummaddaas naxariisteeda in laga dhigo. laakiin qof beri ah oo shacbiga inaan kala safanno oo dowladaha deriska aan kala helino. waxyaabaha aan la yaabno waxaa wey kenya hadda hadii wax laga sheego dad badan oo soomaaliya difaacay. ajnabi maaha kenya, ha waa laga sheegi karaa. maxaa u dhibsanaysaa in kenya wax laga sheego yira waddankeena laga ilaaliyo? waxaa dhinaca kala joogay in qolo kale etoobiyaanka igana wax laga sheegi karin. qabaa'il ay naqdeen. qabaa'il waxaa jira daa tirahay etoobiya war dadka intaas ma soo dhex mara wuxuu ku leeyahay maya etoobiya waa hesha saaxiib walaalaheen waa ku leeyahay. marka etoobiya iyo kenya u kala safanahe war maslaxadda waddanka aan fiirino. taas ayaa owlaah oo ilaahayna weydinaya. kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi, war wallahi waa la isweydiinaya. culammadaa la weydinaya. dadka banaanka joogo maxaayidka ma aha. hoosheenna maanta aan taalmo aragna waxa waddanka ka dhacayo indhaha yaa ka qabsanin. waa inaan sulx ku dadaalnaa. laakiin haddii kale waxay noqonaysaa hadhow dadkaas kaliya maku dhibtoonayn, bal islaanta umusha ah, caruurta yaryar, waxaas waa yeelada ayaa ah. ogowna ilaahay ma mogo kuwaas waxaa laga yaaba hadday howl qabi karin waa yeelada habaaray haayaan. guryaheedu jooga ilaahayo kana dhaafi, ilaahayo kuwaana dhaafi dhahayaan. ama qaarna mucaaradkii habaarayaan, qaarna dowladdii habaarayaan. ilaahay ducadan waa ajiibaya. ducatul madluumka ninka laga gardanaya ducadiis waa ajiiba. war ittaqu llaha ilaahan ka baqno. wax kale aan dhihi karna mala. hadalka inaad ka faa'iidaysataan oo nin kastoo meeshu raba ka soo jarta hadhow oo isticmaalo siyaas u isticmaalo. diinta saas ma aha. diinta waxaa la rabaa nasaaxada waxaa leeyahay udkhulu fi silmi kaafa. war diinta islaamka hore loo qabsadaa. laakiin mucaarada imaanayo wuxuu soo goosanaya hadalka meesha asaga anfacaysa. wuxuu leeyahay sheekha culimada saasay tiri. koo kala soo goosanaya dowladda meesha ka tiri sheekh kaloo haasta asagana TV-ga u fadhiyo ama Facebook u fadhiyo. kan ninka sheekhaan dhageyso. war ummadda yaa la isku horkeyn. والله إني مصلحة نوجورين إنه ما دجال ديك إنه قاتل النبي عليه الصلاة والسلام من عانى على قتل مؤمن بشرط الكلمة ورني ديك مسلم وطاعتني كدتكو كلمة
dadkan Facebook ka farxayo oo raba in dadka la dilo ama dawladda inay disho wax rabo ama mucaaradka inay dadka ay dilaan ay rabaan wallahi haddaad ku kaalmaysid wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii muslim dilkiisa ku kaalmeeyay nisf kalima wuxuu yiri dembi wala qaadanaya balse nabigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu qof kastoo la dilo qaabiil oo baneeyay jidka ayaa man sanna sunnatan sayyi'ah waxaan u baahanahay maskaxdeena cashano war dawladaha wadankeena dawlad rasmi ma qabno runtan isku sheegnaa xalana waxa fadhiya dad gaala fadhiyana xukumaan waxa marsuufkeena ciidamadeena waxa leeyahay dad dawladaha kaalmeey ay diin aan ka hadlaynaa marka wadanimada sheeganayna maxay tahay waxay ku xirantaa taas khilaafkeena u joogan qaramo waxa joogto Amazon wadanka joogto waxa leeyahay lama bixinayo may waxa leeyahay wal kala la qabana war waxba waa kala horeeyaan waxa koow ah walaalka qalbigiisa u hanan lahayd taas watan wadanka lagu badbaadi karo laakiin qof qasbaga islaam mucaarad dawlad xoog meel ugu dajiya guul gaareenin wala dawlad xoog meel ku qabsata geel guud gaareenin xaqadkaas way kaas asku sheegno aan ka baxna dhalanteedka iyo kala taageerida oo qabiilka jiidanayo ama danta nin dan leh ama dawlad u shaqeeya ama lacag la siiyo mushaar u socdo oo Facebook fadhiyo umad isku dirayo kaasi una balaynin nataqillah